السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دو Somali Fit waxaan rabaa inaan sharxo Optimum Nutrition Serious Mass oo ah borotiin cusub oo hadda yimid inaan bacda ka fiiqo sidoo kale sharxo ka kooban yahay sida loo isticmaalayo iyo faa'iidadu leeyahay ila soco. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow Somali Fit haddii tahay markii ugu horeysa soo booqatid fadlan subscribe channelka muuqaalo badan oo nutritionka caafimaadka iyo fitnesska oo baan soo geliyaa channelka sidoo kale maanta waxaan rabaa inaan bacda ka fiiqo borotiin cusub oo yimid magaciisu yahay Serious Mass. Nutrition Serious Mass waa powder casri ah quality fiican yahay lana dhahi karo waa proteiniska ama powderada ugu fiican oo ku jiro proteiniska ugu badan ee suuqa kuwa laga helo powderada laga helo protein oo powderka ugu badan oo proteinka ugu badan ku jiro wuxuuna aad ugu fiican yahay dadka hard gainerka ama ay ku adagtahay inay murqadistaan miisaankoodana wax ku daraan sida aniga kale ama ectomorphisms ahaan muuqaal hore ayaa jira uga soo hadlay ectomorphiga iyo qaab kala duwan ee jirka bini'aadamka uu kala samaysan yahay iyo markay noqoto cunooyinka isticmaali karaan iyo xilliga ay miisaanka iska dhimayaan ama weight loss sameynayaan iyo weight gain markay sameynayaanba muuqaalka wax ka heli doontaa descriptionka linkigiisa ayaan soo dhigi doonaa booqo waxaan bacda ka fiiqi doonaa insha Allah proteinkii iyo oo safar dheer soo galay masha Allah. وكان بروتينكي Serious Mass Gainer waxa weeye waxaan dhahay karaa powderka ugu fiican marka la rabo waxaa la socday tan waa shakerkii weeye tii lagu qasiyo weeye waa calofiska gymka waxa ku jirta halkay qaado waxa ku jirta 1250 oo calories ba ku jira waxaana ku jirta totalka ku jira gramka ku jira waxa weeye 250 gram waxa ku jirta 50 gram oo protein 254 gram oo carbohydrate iyo 25 gram oo ka kooban mineral iyo vitamins iyo isugu jirta fat waatan qaadada ku jirta ama qaadada weyn ku jirta waatan tan weeye waxa ku jirta tan waxay qaadaysaa aduu 325 ka badan gram bay qaadaysaa qaadadan marka qaadadan weeye qaadada isticmaalaysid waad ku qasanaysid waxa ayaad ku qiyaasanaysaa aydan waatan okay proteinkan fatka ku jira waxa weeye 3.5 waxaan la dhahi karaa waa powderka kaliya fatkiisu aad u yar yahay waxa ku jirta gram protein ku jirana waa 50 gram oo protein iyo carbohydrate ku jirana waa 254 waa carbohydrate ugu badan powderada ugu badan oo ku jiro carbohydrate inta la eg faa'iidadiisana waxa weeye
energy badan ayaad ka helaysaa. Dadka caatada ana aad buu ugu fiican yahay. Sidoo kale waxaa ku jira vitamins iyo amino acids badan oo muhiim u ah muscle building ama murqa dhisidda. Muhiim u ah in markuu gymka ka timaadid murqa inuu dib u sameeyo recovery una hypertrophy u sameeyo ama uu koro muruqii. waxaan ka caawinaya oo sii dheeriya ku jira proteinkan ama halkiisa qaado waxa ku jira vitamino gaaraya ilaa 25 gram oo vitamin. waxaad u isticmaalaysaa haddii aad tahay hard gainer ama dadka ectomorphiga ama dadka caatada waxaad isticmaalaysaa 3 qaado. waxaana u isticmaalaysaa waqtiyada ugu fiican ay tahay marka gymka ka timaadid xilligaas oo calorie dhamaa uu ka dhamaaday murqaha iyo daalan yihiin u baahan yihiin energy iyo habeenkii markaas yaxanaysid iyo subax markaas oo kacdo ama cunada quraacdii qada dhexdooda. saddexda waqti saddexda ugu fiican ay isticmaali kartid xilligaasna waxaa kor u qaadaysaa murqaha hormones wax dhisa sida insulinta iyo hormoneska la midka kuwaas oo ka qayb qaadanaya in murqaha ay dib energy badan u sii gareeyaan dibna ay u koraan. sidoo kale waxaad isticmaali kartaa haddii aad tahay qof hore gym u soo jiray oo aan caata ahayn xoogaa dhisan waxaad isticmaali kartaa hal qaado iyo half aad isticmaali kartaa. waxay u dhib isticmaalaysaa marka gymka ka timaadid iyo habeenkii markaad seexanaysid. ugu dambeyntii pointi ugu muhiimsan marka aad tahay qof caata ah proteinka wuxuu kaa caawinayaa in aad energy badan muruqaagiisa gareeyo energy badan uu helo halka markaad gymka joogtay energy badan aad luminaysid. halkaana ay kaa caawinaya borderkan in cunadaadii iyo borderka manarkii la isku daray in aad ka hesho energy aad u badan lagu qiyaasi karo maalintaa 3,000 oo calorie marka cunadaa lagu daro kaba badan baan dhahi karaa haddii aad sida aan sheegay aad u isticmaashid. waxaana hubaa in aad cayilisid murqana yeelanaysid baan hubaa. sidoo kale haddii aad horay gym soo geli jirtayna sidoo kale borderkan serious mass ma isticmaali kartaa adoona gym aadan dheelayn. waa may sababtoo ah gymka waxaa u isticmaalaysaa proteinkan ama borderkan inaad energy badan ka hesho markaad gymka ku jirtid iyo markaa kasoo baxdid muruqa ku koro. haddii aad gym aadeen waxaa kugu dhacaya in murqahaagii waxaa la jeedaa in jirkaagii ay tagto calorie aad u badan nafaqadaas badanna jirkii uu handle gareyn waayo ama isticmaali waayo. waxaana ka imaan karta in cayil kugu yimaado ugu dambeyn in xanuunada ay ka mid tahay macaanka iyo dhiigkarka iyo xanuun la midka inay ku yimaadaan. marka waxaan ka digaya inaad isticmaashid proteinkan ama borderkan adoon gym dheelayn waxay yeelanaysaa muddo dheer haddaad isticmaashid dhibaatooyinkaas ay keeni kartaa. ugu dambeyn haddii aad muuqaalkan ka heshay fadlan like saar channelka videoga like saar channelka subscribe dheh si aad muuqaaladana dambe aad ula socotid. waana mahadsan tahay. assalaamu calaykum.